toddoba arrimood oo gabadh kasta ay kugu jeclaanayso. hees Soomaali ah ayaa erayadeeda waxa ka mid ah: haddii aan jacayl jirin jaar lama ahaadeen, haddii aan jacayl jirin adduunyadu ma joogteen. iyada oo ka hadlaysa jacaylka iyo sida aanay noloshu la'aantiis u sii socon karin. haddaba iyada oo jacaylku badiyaaba uu noocyo badan yahay, ayaa haddana waxa markay ereyga jacayl la arko loola boodaa kalgacalka badiyaaba dhex mara labada qof ee gayaanka ah. halkan waxaad ka daalacan doontaa toddoba arrimood oo hadduu wiilku sameeyo sabab u noqon doonta gabadh kasta oo uu doono inay jeclaan doonto. toddobadan tallaabo in badan ayaa hore loo tijaabiyey waana lagu guulaystay, waana sidan. kow, waxaad isku daydaa in aad mar kasta indhaha gabadha aad eegtid. awoodda uu ninku u leeyahay in uu eego indhaha gabadha waxa macnaheegu uu yahay in uu yahay qof isku kalsoon, halka ninka indhaha hoos u dhigana uu yahay qof kalsoonida naftiisa uu ku qabaa ay aad u hoosayso. waa inaad garataa waxa aad doonayso si markiiba loo fahmo fariintaada. kalsoonida aad naftaada ku qabto u muuji. daraasad ay jaamacadda Bristol samaysay ayaa sheegtay in gabdhuhu aad u jecel yihiin ragga kalsoonida badan ee nafsadooda sida aadka ah ugu kalsoon. fiiri ama eeg indhaha gabadha aad la hadlaysid. awoodda uu ninku u leeyahay in uu eego indhaha gabadha waxa macnaheegu uu yahay in uu yahay qof isku kalsoon, halka ninka indhaha hoos u dhigaana uu yahay qof kalsoonida naftiisa uu ku qabaa ay aad u hoosayso. dhoola-caddayntu waxay bini'aadamka gaar ahaan dumarka ku abuurtaa kalgacal iyo kalsooni ay ku kalsoonaadaan qofka dhoola-caddaynaya. balse haddii aad dhoola-caddayso waqti aan loo baahnayn, waxa ay ka turjumaysaa awood darro iyo kalsooni darro. xidho maryo qurux badan. quruxda dharku waxa weeye inay noqdaan qaar indhaha soo jiidanaya kana turjumaya xeerka bulsho ee kolba aad ku dhex nooshahay, waxaanay badiyaaba wax ka tilmaamtaa shakhsiyadda qofka iyo nadaafadiisa. iska ilaali agagaarka saaxiibka iyo inaad ka agdhowaato saaxiibka waqti kasta oo aad isleedahay waad kulmi kartaan gabadha, sababtoo ah shaki weyn ayaa ay ka qaadaysaa mar kasta oo saaxiibka ay kugu ag aragto iyadoo u malaynaysa waxaad ku sheekaysataan inaad isaga u sheegtid.